annaga markay isweydiintu waxay tahay annagu ka beeshan samaahan miyaad aragteen deegaano aanu ka sameynay Sabacadiyo bixin duuli iyo agabar iyo qaxootiga nagi tagay miyaad aragteen dhul idinku haysta miyaad aragteen horta dad baa la laayaa meeshan lagu laayaa waxaan marka qolyahan isaaq weydiinaya ama qolyahan hadda xuduudaha deegaan weydiinaya idinkuna waa soo qaxdeen 98 dadkani way soo qaxeen xamarna waa laga soo qaxay hargeysana waa laga soo qaxay saddex jeer baa la xiray laba jeer waxa la xiray Etoobiyaanku nacab yahay oo axmaaradu nacab yahay waliba waa la igu xukumay xukun baa la igu saaray gobolka Doolo waad weydeen wixii ka dhacay gobolka Shabeellana magaalada Cadaadle waad weydeen wixii ka dhacay gobolka Jarar magaalada Birqod wixii ka dhacayna waad weydeen saddexdaba dad shacab inta isqa qabsadeen oo dhul yar yar isku qabsadeen aslaax isku qabsadeen nin askari ah oo dawlad deegaanka oo shacabkaasi taabteen ma jirin sidee bay ku dhacday dacwalay in ciidankii madaxtooyada lagu laayo oo hogaankii nabadgelyada iyo caala lagu dilo oo waxa weeyaan intaasoo media la galo oo waxa weeyaan ciidamo iyo technique ay soo galaan oo ilaa iyo maanta wax talaabood qaadeen iyo wax midna ayna jirin shalay waxa dhacday dad Soomaaliland ka yimid oo Burci iyo Ood Weyne iyo meel awdhigli iyo meel iska soo urursaday yaa isla dawlad deegaanka dhaxdiisa waliba gobolka Faafan ee caasimadda dawlad deegaan ku taala intay yimideen oo shir qabsadeen oo calankii dawlad deegaanka halka lagu tuuray oo calan Itoobiya dhabarka lagu qabsaday bismillaah thumma salatu wassalamu ala rasuulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa salaama ya dhamaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda dawlad deegaanka Soomaalida waxaan soo fadhiistay maanta horta marka hore anigu suldaanka guud ee beesha Maxamed Subeer baan ahay aan iskiin baro marar horena meediyaha waan isugu nimid inta kadib waxaan anigu aan maanta barnaamijkan aanu imid waxoogaa inaan ka hadlo mar haddaynu dad muwaadiniin oo wadanka u dhashay aan nahay dad waaweyn aan nahay nin walibana halganka meel kaga jiro oo wadanka in wax lagu soo kordhiyo oo bulshada la wacyi galiyo waxa weeyaan wax la wadaago oo amarku mashruuca oo rasuulku yiri aan wax wada wadaagno ay xaaladu tahay walow hadda xukuumadda jirta inay wax wada wadaag ogolayn nacfi iyo hadal iyo tala midna ayna ogolayn haddana sida ay tahay waa waajibna saaran inaan mar haddaan cuqaashi deegaanka iyo waxgaradkii aan nahay inaan hadallo sida daraadeed maanta waxaan warbixin yar oo kooban inaan kaga hadlo wacyiga hadda deegaanku sugan yahay deegaankeena deegaan nabadgelyo ahaan jiray halgan fara badan iyo dhibaatooyin fara badan iyo dagaalo fara badan bay ummadan deegaanku u soo gashay iyadoo waxa soo dhiba la soo galay ayaa waxaad moodaa hadda markii nacfiga ay soo dhow yihiin deegaankii dadkii u soo halgamay inuu farihiisa ka baxay oo laga wareegay baad moodaa saddex marka eray ayaan rabaa mid walba inaan saddex qodob inaan mid walba kaga hadlo qodob xukuumadda dawlad deegaanka hadda haysa ayaan weydiino su'aal iyaga aan weydiinay weeyaan qodobna waxaan weydiinayaa dadkan xuduudaha dega ee ama Doolo ha noqoto ama Faafan ha noqoto ama Shiniila ha noqoto ama Shabeelle ha noqoto ama Afdheer ama Erar ha noqoto dadkan xuduudaha dega yaan iyagana su'aal weydiinayaan arrin qodobka saddexaadna wuxuu la xiriiraa doorka ku haboon doorka ay ku leeyihiin cuqaasha iyo waxgaradka deegaanku dalkooda inay difaacaan oo midnimada ummadooda ka shaqeeyaan doorka waajib ay ku tahay tan waxaan ku horeynayaa dadkan xuduudaha waxaynu hadda wada ogeyn hadda bishan gudaheeda waxaa dagaal ka dhacay dacwalay meesha la yiraahdo gobolka Faafan iyo Jarar waliba raacsan sida istiraatiijiyada aan ku hayo magaalada iyo caala raacsan weeyaan sida istiraatiijiyada aan ku hayo meesha waxa la yiri laba qabiil baa isku dilay baa la yiri annagu xogta aanu hayno horta laba qabiil meesha isku ma dilin qabiil reeyo caala oo iyo caala dadka degaa ayaa horta la dili jiray inta aanan u gudbin colaadihii 80 sano ama 100 sano soo dhacay reeyo caala lagu hayn jiray anigu waxaan shakhsiyan goob jooga waa 84
anigoo hooyaday la socdo hargeysa u lugeeyno isla niman arab la nagu darayo oo la lugeysiinayo yaan yoo cala habeenkii u soo hooyanay yoo cala dagaal baa nagu qabsaday 84 meelahaas ahayd yoo cala dagaal baa nagu qabsaday dagaalka yoo cala nagu qabsaday ragga meesha joogay 30 nin bay ahaayeen raggana soo weerarana inta la tiriyay ee halka la arkay 92 nin yay ahaayeen laba jilibna way ahaayeen oo ciida galay iyo arab yay ahaayeen dadkana soo weeraray anigu goob joogan ha kurayna waan ahaa waxaasan hadda sameeyay oran mahayo laakiin dagaalkaasi meesha waa nagu qabsaday waanuna dagaalanay waanuna istifaacnay waliba aslam yay u badnaayeen intaas dhaafay aslam ayay u badnaayeen ragga markaa dagaalka nala dagaalamayo qoryo BKM iyo gawaari guuxoodba waan maqlay wali wiil yar anu waan ahaa rasaasu meeshaan la dhaxroorday oo nin dagaalami karaahayn ujeedkaygu marka waxay tahay horta dad baa la laayaa meeshan lagu laayaa waxaan marka qolyahan isaaq weydiinaya ama qolyahan hadda xuduudaha deegaan weydiinaya dadkan reer ogaadeeyo uu qaxay baxootiyadii Soomaaliya u galay qaarna waqooyi bay galeen qaarna koonfur bay galeen qaarna gobolada dhaxay galeen idinkuna waa soo qaxdeen 88 dadkani way soo qaxeen xamarna waa laga soo qaxay hargeysana waa laga soo qaxay dadkii hargeysa ka soo qaxay waxay soo degeen harta sheekha iyo wajaale iyo daroor iyo kaam bokor iyo kaam haashim halkaas ay soo degeen dad qaxooti oo ka soo qaxay baa hargeysa iyo berberi iyo balugubadli iyo burciya ka soo qaxay baa annaga markay isweydiintu waxay tahay annagu ka beeshan dadkan dawlad deegaanka ama dadkan absama ahaan miyaad aragteen deegaana aanu ka sameynay sabacadiyo bixin duuli iyo agabar iyo qaxootiga nagi tagay miyaad aragteen dhul idinku haysta miyaad aragteen wax dhul oo idinku haysta dadkaas miyaad aragteen soo sidaan u qaxnay hadana mar labaad maana u soo qaxin waay bay marka ku timid idinku marka soo qaxdeen harta sheekhana inay degmeydii noqoto dulcadna degmeydii noqoto qaxootigii nagu soo qaxay oo Soomaaliland ka imanhay oo waxa weeyaan daroor iyo waay baad idinku aad muwaadiniin u noqoteen oo hub iyo dagaal iyo hadda degmooyin iyo gobolliyo aad u doonaysaan waay su'aasha waxa weydiinayaa dadkan waqooyiga ka yimid war qaxootiganiga anaga uu soo qaxay sabacdi iyo aga bariyo intaan u qaanay biyo xireenkii ayaan haddana mar labaad soo qaxay waay baad idinku ugu noqon weydeen maxaa waari iyo caali iyo idinka soo galay oo waxa weeyaan qaxooti baad ku timideen qaxootiguna noqdo bay ahayd markii wadankiisii dib ka dhacay waay baad markay isaga noqon weydeen taa waxaan weydiinayaa dadka ka soo jeeda gobolada waqooyi midna waxaan weydiinayaa dawlad deegaanka Soomaalida dawlad deegaanka Soomaalida horta ma carabiga waxay tidaahaa la taqtulu suudukum fatakulukum kilab aduwikum yani waa macnaheedu tahay libaaxyadiina hadilina si ayna ayda shisheeyuhu ama ayda cadawgiinu ay idin cunub bay horta carabtu ku mahmaada dawladda deegaanka Soomaalidu waxay caadeysatay nin alla iyo qoys kasta iyo qabiil kasta oo dadkii deegaanka u dhashay Ethiopianiska ahaa in ay qof walba ay dhulka la sinto oo wax weyn shakhsiyada ka qaado oo ururadii halgamada ay heege iyo dabaqoodhiye iyo TPLF iyo magacyo anaga noo bixiyeen qabiilay inta nagu saleeyeen oo xukumo hore noo wada sameeyeen ayaa waxa weeyaan khadka naga saareen waxay noola dagaalameen si bini aadamka waxa la yiraahdaa dawladii hore wax dilay bini aadamka waxa qofka dhaqaalaha kala dagaalama ee fikirka kala dagaalama ee shakhsiyada kalsoonida kala dagaalama dawladani saddexaad way naga dagaalantay risiqii ummadda way kala dagaalantay afar nin bay ku koobantay damiirkiina way naga dagaalantay oo hadleen qofkii aad laba heeyaa TPLF faatay maxay baa tahay baa leh waxa weeye shakhsiyadii iyo qabiil baan wax iskaga celin jirnay oo deegaankanaga ku difaacan jirnay qabiil ahaantiina way noola dagaalantay oo dadka ka soo jeeda deegaankan u dhashay ee ilaa Xayla Salaasiya ilaa Mililig la dagaalamay khadkay naga saartay oo waxay tii ninku TPLF iyo EPRDF iyo TPLF iyo waxba tiima nagu shanbadas dawladda marka waxaan kaloo dawladda weydiinaya anigu hadda shakhsiyan aniga hadda hadlay saddex jeer baa la xiray laba jeer waxa la xiray Ethiopiaanku nacab yahay oo axmaaradu nacab yahay waliba waa la igu xukumay xukun baa la igu saaray wada noolaanshaha Ethiopia ka soo horjeedaa bal
taasoo beenooday aan wada naabasho Ethiopia kama soo horjeeday waxaan sheegay deegaankan dad u dhashay inay jiraan oo iyadoo federaal la yahay deegaanka la kala leeyahay oo deegaankani deegaankanagi yahay oo deegaanka Soomaalida uu yahay dawlad deegaanka Soomaalida baan sheegay anigu waxaan diidanaa in deegaanka Oromiya iyo kii Axmaara iyo kii Tigray iyo kii Dhaguugiyo aanu isku dhaxshaandheysnaana una maamulkii iyo risqii iyo wax walba iyagu naga awood bataan waxaan baan horta anigu diidanaa tiina waa lagu xidhay waa lagu xukumay oo in badan baa lagu dhibaateeyay oo tira ka 3 jeer baa la xidhay waxay ka mid tahay marka shakhsiyad la dagaalanka iyo muwaadinimo la dagaalanka iyo bahdilka mar walba oo wali aan ku yiraahdo war dadka aan ilaahay deegaankan anaga u soo halganay anaga u rafaadnay umadu way kala xidhantahay amnigeedu anagu nagu xidhan yahay marka soo ninaha waxa la igu eedeynay reer hebel baa iyo TPLF baa iyo hebel baa taageersan tahay ayaa horta xukuumada nooga dhigi jiray mas'uuliyad xukuumadda marka waxaan weydiinayaa yaa dambi la nooga dhigi jiray xukuumadda marka waxaan weydiinayaa ma waxaad idinku u aragteen oo damiirkiinu idin siiyay 3 meelood oo hadda beeshan deegaanka sii degta dadkan sii degay ay ku dagaalameen oo xuduud isku qabsadeen qabaleeyaan yaan tusaale idinku soo qaadan gobolka Doolo waad weydeen wixii ka dhacay gobolka Shabeellana magaalada Cadaadle waad weydeen wixii ka dhacay gobolka Jarar magaalada Birqod wixii ka dhacayna waad weydeen saddexdaba dad shacab intay isqa qabsadeen oo dhul yar isku qabsadeen aslaax isku qabsadeen yaa intaad guutooyin ciidan u dirteen oo new police ayaa shacabkii wax dhulka la simay bud iyo dil iyo qixin iyo xidhxidh iyo raaxada laga qaaday nin askari ah oo dawlad deegaanka oo shacabkaasi taabteen ma jirin iyaga dhexdooda baa isku buuqay deegaamiin baa isku qabsadeen markii la soo la xalin lahaana odayaasha xalin lahaana sida wardheer oo kale jeel baa laga buuxiyay oo Cadaadle jeel baa laga buuxiyay oo kuwii burqada garba u cararay waa laga daba tagay waa la soo qabtaa leey markii saddexda gobol aad sidaa u gasheen dawladdu ay sidaa u gashay oo iyadoo la dagaalamaysa deegaameen cusub inaan la sameyn sidee bay ku dhacday dacwalay in ciidankii madaxtooyada lagu laayo oo hogaankii nabadgelyada iyo caala lagu dilo oo waxa weeyaan intaas oo media la galo oo waxa weeyaan ciidamo iyo technique ay soo galaan oo ilaa iyo maanta wax talaabood qaadeen iyo wax midna ayna jirin oo makhraati aad ka ahaydeen isla shalay dadka soo gudbay Somaliland oo xuduudda Somaliland intay soo galeen dawlad deegaanka annaga waxaan nooga dhaarateen shir ma ahaanay hotel jigjiga kuma qabsan karna si walba hadaan idin soo ogeysiino annagu waa gobolka Jarar ama annagu gobolka Nagoob odayaashiya ama gobolka Qorraxay inaanu shir qabsano nooma ogoladin shalay waxa dhacday dad Somaliland ka yimid oo Burci iyo Oodweyne iyo meel awdhigli iyo meel iska soo urursaday yaa isla dawlad deegaanka dhexdiisa waliba gobolka Faafan ee caasimadda dawlad deegaan ku taala intay yimideen oo shir qabsadeen oo calankii dawlad deegaanka halka lagu tuuray oo calan Ethiopia dhabarka lagu qabsaday